الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مجاهدين تجبد قدني طبعا وحاوم لنا مدبلا اسموغنا أنا يادينك بالكور حلقنا إسل جوجني وعن ربا مركو هورسنا إن كوجا همبلي جوشي ديجان كان كسوهيدين iyo dhabar jabkii cadawga halkan kula dhigteen oo ilaa hadda uu ka soo kabsan laay ilaa maanta la joogo deegaankan saa ugu jibiseen meel uu ciidan ku hor istaaga wallaahi cadawga waxa ugu dambeysay mubaarag markastoo loo dhawaad inay sii cararaan ma ogiye isku daygii ay sameynayeen oo ciidanka dawladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan maxaa la lahaa ciidamada ay hor istaagi jireen horta waxa beeniyay adinka waay waxaan rabaa markuu horeysana idinku hambaliyeeyo idinku bogaadiyo sharafta iyo ciziga iyo karaamada aad leedihiin iyo magaca u soo hoydeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dawladda Soomaaliyeed intaas kadib waxaan rabaa dabcan dadaalkii iyo kartidii iyo firfircoonidii uu muujinay in lagu abaal mariyo waay habeenadii tirada badnaay halkan difaaca uga jirteen subax waliba cadawga ama dul istaagayseen ama goobayseen dabcan wax mudan in leedinku abaal mariyo waay waana leedinku abaal marin doonaa haduu Ilaahay idmo waxaan rabaa dabcan deegaankan muddadii bisha ahayd ay joogeen dadkan dhibaatada la kulmeen waa ogeedeen ayadoo abaar jirto dadka iska dhibanaayeen haddana dadka inay qaxeen ay jidadka ay taagnaayeen nasri waxa ugu horeysay maalinkii aad deegaankan soo gasheen ee cadawga ka nadiifseen maanta waa aragtaan Soomaa wax xoolo meesha biyo ka cabay horana say ahayd waa ogeedeen dabcan sharaftaas waxa la rabaa ilaahayna ajir waa idinku siinaa dawladda Soomaaliyeedna waa idinku abaal marinay adinkana waxa la rabaa dabcan sida taliyiina qaybta hadda uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya loo diyaar garoobo meesha ku hareen in laga saaro fadhi ma noo yaalo fadhi nooma yaalo saa awgeed anoo idinkaga mahad celinaayo idinkuguna hambalyeynaayo guushi aad gaarteen iyo sharafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan niyadii aad soo celiseen haddana waxa idinka rajaynayna waa in hore loo socdo hadduu Ilaahay insha Allah saaxiibadiina oo kala idinku soo biiri doono aniga hadda markaan imid dugsiga Qorolow kama soo bilaabin waxaan toos hor jawad godana u tagaa kadib aan Qorolow u noqon haduu Ilaahay saa u imid hadda inta u imid by the way laakiin waa adkaysateen waana guuleysateen insha Allah waxa idin rajaynaa guushaas gorgor sideeda guula lagu ogyahay al-shabaab ma filaneen haween madow inta la baxa gadaashaada la maro aasoo xabad lagu bilaabo horta ma filaneen idinkaana ka dhaweey by the way waan idinkaga mahad celinaa maanta farxada ii tahay inaan soo hor istaago waxaan rajaynayaa dabcan deegaankan iyo muhiimadiisa waa la sheegay annaga deegaanada Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed muhiimad gooni oo kala leeyahay ma jirto inta nimanka cadawga ay joogaan hal taako oo dhulka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed dhulkeedana jiif nooma yaalo insha Allah Ilaahay uu noo fududeena bishii barakeysneed ee Ramadaanka ahayd dul qaadateen ee aad difaacida ku adkaysateen Ilaahay ajirkeeda ha idin siiyo laba cibaada ku jirteen by the way tii difaacina waa ku jirteen tii soonki iyo Ramadaankii iyo cibaadadana waa ku jirteen Ilaahayna waa idin waafajiyay Ilaahay ajirkeeda ha idin kulmiyo haduu Ilaahay idmo dabcan maanta waa u jeedino gudoomiye gobolka iyo xildhibaankii deegaankii waa socdaan shalayna intay xabadda socotaa ama inta deegaankan howlgalada ay ka socdeen ma maqnaynino maalin kasta waxa maleena garabkiina bidix waxa idin kala sinay Soomaan ciidan deegaan oo macawisley oo cadawga u diidaayay hadda waa soo dul marnay inay inta idin kala wareegaan ee gadaashiina maraan way ku adkaysteen maalinna kama bixin difaac ayagoo dad shacab oo deegaan oo waajib uusan ka saarnayn difaaca dalka iyo diinta Soomaan dhalinyaro Soomaaliyeed aanan mushaar ku qaadanaynin aanan garaam ku qaadanaynin difaac idin kula jireen shabaab dadka markuu yimaado inuu dulaysto isku daya laakiin dadkan asoo dul yimid ee haddana ka sii cararayeen maalin kasta waa ka soo qaxayeen laakiin sideeda waa ogeeyeen markay cadawga u yimid dadkan deegaanka waa soo wada qaxeen hal qof kuma harin deegaanadii imaadeen waxay sugaayeen waxay ahayd inaa idinka deegaanada ka nadiifisaan si guryahooda ugu noqdaan way dul qaateen idinkana waa uga dhabaysan ballantii aa u qaadeen waa inaad dadkan ka dul qaadaysaan waxaan rajaynayaa insha Allah inta yaroo dhiman hadda ay ku harsan yihiin ayadana sida ugu dhaqsida badan maxaa lahaa in aan uga saari doono ilaahayna garabkeenu ku jiri doonaa markasto
guushiinana waa idinkuga hambalyeynaa aad iyo aad aan u mahadsantihiin maanta farxad gooniya ii tahay aniga Soomaaliya ha noolaato ha guulaysato xoogga dalka Soomaaliya ha guulaysto aad iyo aad u mahadsantihiin billahi tawfiiq